بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dadweynaha reer Djibouti meel kastood joogtiin badalkiya dibadaba waan idin salaamayaa. waxaa dhacday runtii dhacdo aad u foolxun baa dhacday. waad ogtihiin weerarka joogtada ah ee la igu hayo tan iyo markii aan siyaasadda galay. waxaasina wax iga joojin kara maaha hawshayda iyo halgankayga nabadaysan ee dalkiya dadkaba aan ugu talagalay inay kaga baxdo darxumada. waxaa dhacday in baabuurkaygii baabuur yar oo qarafa oon meelaha aniguba riixa oo daalay oo Allah ka raali noqday xaajiyadayda oo macallimad ahayd ay igu taageertay ayaa waxa dhacday in loo soo daato oo waliba la burburiyo sidaa idinkuba indhihiina aad ku arkaysiin ayaa dhacday. laakiin waxaan halkan ka cadaynayaa in waxa iyo wax lamida ayna iga hor joogsanayn halgankayga nabadaysan ee siyaasadeed ee ummadda reer Djibouti iyo dalkayga aan u horay kollaba waxaasi igama hor joogsanayso. tanna wax mushkilada uma arko waayo waxay ka mid tahay waxyaabaha la rabo in lagugu cadaadiyo ama lagugu jilba joojiyo. dadweynaha reer Djibouti meel kastoo joogtiinba waan idin salaamayaa. waxan iyo wax lamidana wax naga joojin kara ma halgankayga nabadaysan ee siyaasadeed. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.